السلام عليكم أصحابتا ku xiran channelkeena Maida Kartoon aad ayaad u mahadsantihiin sida quruxda badan aa mar walba ila socotaan waan arkaa commentiyadiina quruxda badan aad ayaan idinka mahadcelinayaa fadlan channelka subscribe saara asxaabtiina la wadaaga oo share dhaha wixii fariin ah comment nagu reeba aad ayaan idin jeclahay dhamaantiin soo dhawaada maantana waxaan idin hayaa sheeko kale oo cusub aad ka heli doontaan bari baa waxaa jira askari la oran jiray Asad wuxuu go'aansaday inuu reerkooda aado kadibna wuxuu xaflad u qabtay saaxiibadiisa si uu u macsalaameeyo wuxuu safarkii ku sii jiray markuu maalmo badan sii socday waxaa ka go'day sahaydii asagii dameerkiisa ay ku gadan lahaayeen cunto wuxuuna dareemayay gaajo iyo daal laakiinse nasiib wanaag wuxuu arkay guri weyn oo meel ku yaalo wuxuu galay gurigii quruxda badnaa fariskiisana wuxuu siiyay coos iyo biyo kadibna wuxuu ku xiray meel asagana wuxuu u dhaadhacay gudaha guriga wuxuuna arkay miis saaran yihiin cunto aad u macaan wuxuuna bilaabay inuu cuno asagoo aad u faraxsan oo cuntadii iska cunaya ayaa waxaa u timid Oris wuxuuna dareemay cabsi waxba ha cabsanin aniga waxaan ahay amiirad daacad ah oo sixran haddaad hal habeen halkan ila baryi lahayd oo joogi lahayd sixirkayga wuu jabi lahaa waan ka xumahay aniga halkan ma joogi karo habeen sababtoo ah adiga ayaa joogo Oriskii waxay tiri waxba ha ka walwalin aniga kuma dhibaateynayo kadibna waxay soo waday Asad waxayna tustay gabadhii boqoradda sawirkeeda oo meel ku dhagan sawirkan aad u jeedo waa aniga aad ayaad u qurux badan tahay waa mahadsan tahay laakiin ogow haddaad hal habeen ila joogto halkan wuu iga buri lahaa sixirka oo waxaad ii noqon lahayd sixir fur markaas kadibna waa isguursan laheen waa ballan aniga aan kaa qaday waaw aad ayaan u jeclaan lahaa haddaad noqon lahayd xaaskayga adiga saan u quruxda badan waayahay caawa waan kula joogayaa aad ayaad u mahadsan tahay magacayga waa Asad habeen wanaagsan bari subax ayaan is arkaynaa daalkii badnaa ayuu Asad la saaxday subaxii markay qorraxda soo baxday waxaa u timid amiiradii aad ayay u qurux badneed xitaa sawirkii uu arkay way ka qurux badneed waxayna ku tiri waa mahadsan tahay maadaama aad sixirkii iga furtay sidii ballantii aan kaaga qaaday waxaan diyaarinayaa hadda arooskeena kadibna arooskii ayaa dhacay dadkii oo dhan halkaas ayay ku dabaaldegeen labadoodana way aqal galeen waxayna ku noolaayeen farxad waqtiga wuxuu isguraba Asad wuxuu u xiisay inuu soo arko waalidkiisa wuxuuna u sheegay xaaskiisa waxay ku tiri ha bixin miyaadan halkan ku qanacsaneyn markaas ayuu yiri waxaan rabaa inaan waalidiinteyda soo salaamo waxba ka walwalin gacaliso dhaqso ayaan soo noqonayaaye waayahay qaado juwaankan ay miraha ku jiraan wadada meel alla meesha aad sii mareysaba mirahan ku sii tuur waxaa soo bixi doona geedo qurux badan waxayna dhali doonaan mirahaasna waxaa cuni doona shimbiro aad u qurux badan oo ku dul heesi doono aad ayaan u nasiib badanahay haddaan adiga ku helay kadibna wuu soo baxay Asad markuu safarka ku sii jiray ayuu wuxuu arkay 3 nin oo meel coos fadhiyo oo na ciyaaraya turub agtooda waxaa ka lushay digsigaasina kama shidneen agtiisa dab laakiinse digsiga aad ayuu u karaayay iska warrama walaalayaal waxaa cajiib ah digsiga aad haysataan oo dab la'aanta karaayo laakiinse aniga waxaan idin hayaa arrintiina arrinka cajiibsan wuxuuna dhulka ku tuuro mirihii isla markiina waxaa soo baxay geed weyn oo miro dhalay oo walaal xaguu ka helay mirahan waxaan u maleynayaa amiiradii sixraneed ayaa mirahan soo siisay ninkaani waxaan u maleynayaa ninkaani inuu yahay amiiradii ninkii ka sixir furay sixirkii aynu annaga sixirnay hadda waa inaan abaalkiisa marinaa waa inaan sixirnaa oo uu jiifaa 1 sano Asad muusan garanaynin inay nimankan yihiin nimankii sixray amiiradda isla markiiba wax bay ku tuureen
asad faraska ayuu ka dhacay kadibna wuu suuxay. isla markiiba askartii amiiradda u shaqaynaya waxay u sheegeen inay wixii geeda ahaa ee wada qallaleen. allah, arrintaani wax wanaagsan ma ahan, wax qaldan ayaa ku dhacay odagayga. isla markiiba waxay go'aansatay inay soo raadiso asad. kadib markay soo raacday waddadii uu asad maray, markay maraysa barxad weyn oo meesha ku taalo ayay waxay aragtay geed la yaab leh uu hoos jiifo asad. markiiba faraskii ayay kasoo degtay, waxayna u timid asad. way qanjaruufatay, way dharbaaxday, laakiinse wuu kici waaye. isla markiina waxay habaartay asaga, waxayna tiri, madax adeegaaga ayay waxaan u dhaceen. waxaan rajaynayaa inay ku timaado dabeel oo adiga dhan ku qaadato. dabeeshaas intay ku qaado ee ku geyso meel fog aan la ogeyn. isla markiiba waxaa timid dabeel guuxayso, kadibna waxay qaadatay asad oo ka leexisay wejiga amiiradda hortiisa. laakiinse amiiraddii waxay ka xumaatay hadalkii ay ku hadashay oo dhaqso la aqbalay. laakiinse xilligaasi waxay ahayd xilli dambe. asad markuu indhaha kala furay waxaa ka soo wareegatay sanad barkiisa. asad wuu istaagay, wuu yaabay. alla yaa halkaani keene, halkeen joogaa? wuxuuna bilaabay inuu ku socdo jasiiradda hareeraheeda. asad wuxuu arkay 3 wiil oo jasiiradda agteeda taagan. waxayna ahaayeen 3 nin oo sixiroolayaasha ahaa wiilashooda. 3daas wiil way isdagaalayeen. asadna wuu u tegay, wuxuu yidhi, maxaad isku dagaalaysaan oo jiro? mudana fiiri, aabbayaasheen ayaa dhaxalkaa nooga tegay. waa roog biibaayo, kaba mucjiso leh iyo koofiyad aan la arkaynin. laakiinse waxaan isku dagaashanahay sidii aanu qabsan lahayn. waryaa sixiroolayaashow doqomaha ah, joojiya, aniga ayaa idin kala qaybinayo. ma arkaysaan geedahaas qumbaha ah? midka caleentiisa oo hoos ku taalo ayaad orod ku tegaysaan, orod ayaad ku soo noqonaysaan. alaabtana halkaan dhiga. qofka ugu horeeya oo isoo gaaro wuxuu kala dooranayaa 3dooda. qofka ku xiga oo isoo gaara wuxuu kala dooranayaa 2dooda. qofka ugu dambeeyana wuxuu qaadanayaa wixii u soo haro. 3dii ciyaal iyo saaxiriinta waxay bilaabeen inay u ordaan halkii. asadna wuu qoslay, wuxuu qaatay koofiyadii, kabihii, wuxuuna ku fariistay roogii, kadibna wuu la biibay. asad markuu hawada galay wuxuu bilaabay inuu raadiyo boqortooyadiisa. kadibna wuxuu arkay aqal yar oo meel ku yaalo. kadib wuu degay, aqalkii ayuu galay, wuxuuna ku arkay islaan duq ah. subax wanaagsan ayeeyo, waan baahanahay, waxaan cuna ma isiin kartaa? haa wiilkaygiiyow, fadhiiso. islaantii duqdaheed waxay gacmaheeda u taagtay kor, miiskiina waxaa soo buuxsamay isla markiiba cunto. waaw, waxaa tahay mucjiso. wax badan ayaa kuu dhiman, ee aamus ee cuntada cun. asad wuxuu bilaabay inuu cuntadii iska cuno. markuu cuntadii cabbaar cunay uu istaagay. isla markiiba wixii alaab miiska saarnaa way mirqeen. aad ayaad u mahadsan tahay cuntada aad siisay. waan kaaga mahadcelin lahaa haddaa wax kale igu caawin lahayd. asad wuxuu uga sheekeeyey islaantii qisadii ku dhacday oo dhan. hadda halkaan waxaan u imid, waxaan raadinayaa xaaskayga baaris. fadlan ma igu caawin kartaa sidii aan ku heli lahaa xaaskayga? kuma fahmin wiil yahow yarkaa waxa aad ka hadlaysaa, laakiinse diyaar ayaan u ahay inaan suubiyo wax walba oo jacayl ku saabsan. haye sug, dabeesha ayaan wacayaa. ayada ayaa inoo sheegaysa meel walbo ee ka joogta adduunka. waxay ka soo baxday aqalkii, waxayna cod dheer ugu wacday dabeeshii. waxay tiri, kaale hal mar ii imaw. si dhaqso leh waxaa ku imaaday dabeeshii, iyada oo luxayso geedihii iyo aqalkii meesha ku yaalay. isdeji dabeel yahay, waxaad ii sheegtaa inaad meel ku aragtay amiiraddii quruxda badneed ee baaris. haa ayeeyo, amiiraddii quruxda badneed ee baaris
waxay ku nooshahay boqortooyada cusub. Odageedana waa la waayay. Xilli iyada ay xanaaqsaneed ayay habaartay, laakiinse iyada maysan ogeyn inuu sixran yahay. Laakiin hadda way ka shallaysay ficilkeedii, aad ayayna ugu xiistay. Laakiinse hadda waxaa u yimaado boqorro kala duwan iyo amiiro kala duwan maalin walbo. Waxayna ka codsadaan mar walba guur. Haye, masaafo intee la eg ayay noo jirtaa boqortooyadaasi? Haddii la dhaha socod, waxay noo jirtaa 30 sano. Haddii la dhaha duulitaan, waxay noo jirtaa 10 sano. Haddii aniga aan qaadana, waxay noo jirtaa 3 saacadood. Haye na tus, iga raali ahaada, idiima tusi karo. Fadlan amiiradeydii ii geey, waan ku baryayaaye. Marka hore isdejiya. Waxaan kaa codsanayaa inaad 3 habeen iyo 3 maalmood ii ogolaato inaan dego boqortooyadaada. Markaas ayaan ku qaadi karaa. Waxba uma arko xitaa haddaad deganaato 3 isbuuc. Waa hagaag, waa yahay. Isku diyaari safarka. Hana cabsanin. Wax dhiba kuma gaarayaan. Si dhaqso leh, Asad waxaa qaaday dabeeshii xoogga badneed, wayna la duushay iyadoo la dhex maraysa daruuraha iyo buuraha korkooda. 3 saac kadibba waxay geysay boqortooyadii ay ku nooleed amiiradii quruxda badneed. Nabadey, adiga ayaan kuu naxayaa, ma rabo inaan kula joogo boqortooyadan. Maxaa dhacay? Sabab? Aniga haddaan bilaabo dhaqaaq hal mar, hal guri oo ku yaalaya ma lahan magaaladan. Geed iyo beer wax haraya ma lahan haddaan aniga dhaqaaqo. Iga raali ahow, anigana waxaan ahay dabeeshii naxariista badneyd. Nabadey, waad mahadsan tahay, dabeeshii xoogga badneed ee naxariista badneed. Asad wuxuu xirtay koofiyadii aan la arkaynin, isla markiina wuxuu galay qasrigii, wuxuuna u sii gudbay qolkii hoolka ahaa. Halkaasna waxaa fadhiyay miiska hareerihiisa amiiro iyo boqorro, kuwaasoo u yimid amiiradda inay ku qanciyaan galaas dhayman ah oo hadiyad ah, ayagoo raba inay guddoonsiiyaan. Asad wuxuu tuuray galaaskii dhaymanka ahaa, kadibna wuu jabay. Wixii uu sameeyay way la yaabeen boqorradii. Kadibna Asad wuxuu jeebka ka soo saaray mirihii amiiradda ay siisay, dhulka ayuuna ku daadiyay si ay u aqoonsato. Kadibna amiiraddii way aqoonsatay inuu ninkeeda yahay. Alla waa asaga, alla waa asaga. Martidiina waxay ku mashquulisay xujo ay xalliyaan. Waxaan idiin hayaa xujo. Xujadaasina waxay tahay sanduuq mucjiso leh. Furihiisana waxaa laga sameeyay dahab. Furahaas dahabka ayaa si lama filaan iiga dhumay. Laakiinse isma lahayn waad helaysaa. Waanan helay. Qofkii sheega xujadaasi ayaa aniga i guursanayo. Boqorradii iyo amiiradii way isku dayeen su'aashaasi jawaabteeda, laakiinse way ka jawaabi waayeen. Boqorkeygiyow, kaale halkaan imow ee adiga dadka istus. Asad wuxuu iska qaaday koofiyadii lala arki waaye, kadibna wuxuu shumeeyay gacantii amiiradda. Kani waa furihii xujada, anigana waxaan ahay sanduuqii. Xaajigeygana waa furihii dahabka ahaa oo daacadda. Boqorradii iyo amiiradiina way yaabeen, wayna isaga soo tageen ayaga oo ka xun arrintaasi. Amiirad Baris iyo Asad hab ayay isa siiyeen. Waxayna tiri, waan ka xumahay, waxaas dhan waxay u dhaceen xanaaqayga dartiisa. Wax walbana waxaa ii sheegtay dabeesha. Aad ayay u wada qosleen. Aniga ma xanaaqsani, waan faraxsanahay maadaama dib aan kuugu soo noqday. Waad mahadsan tahay jaceylkeygiyow, soo dhawow. Labadooda aad ayay ugu farxeen inay dib u midoobaan. Amiirad Baris waxay shaqaalaheeda u dirtay qoyskii Asad inay halkaan keenaan si ay iyagu ula noolaadaan waalidkooda. Asad arrintaasi aad ayuu ugu farxay,
aad ayuuna u sii jeclaaday xaaskiisa. Amiiradii waxay bilowday inay koontaroosho xanaaqeeda. Asadna wuxuu ka baran jiray mucjisooyinkeeda. aad ayuu ugu farxay markuu ka bartay mucjisooyinkaas oo uu ku dhaqmay. Asxaabta sheekadeena halkaas ayay ku dhammaatay. aad ayaad u mahadsantihiin. fadlan channelkeena subscribe saara, like wixii fikrad ahna xagga commentiga iigu reeba. waad mahadsantihiin.